السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج لما قعبحي يابكي oo aan ku soo qaato warar ama sheekooyin gaagaaban oo xiiso leh. Waxaa jirta quraanyo ku nool Malaysia oo marka ay dagaal gasho ay la dagaalamayso xasharaad kale oo ku soo duulay ay qayb ka mid ah madaxu qarxayo oo sii daynaysa sun si ay u difaacdo boqoradda. Halkaas ay iyaduna ku dhimanaysaa ciddii soo weeraraysayna ay suntaasi waxyeelaysaa. maadaama aan ka hadlayno xasharaadka, laxlaha oo wasp Ingiriiska lagu dhaho waa noole aad u yaab badan. xasharadan ayaa waxaa qayb ka mid ah samaysaa inay ukunteeda ku dul dhasho cayayaanka kale sida quraanyada, baranbarada, dirindiirta si ay ilmaheeda ugu dhex koraan cayayaankaas oo cunto uga helaan. nooc ka mid ah laxlaha ayaa ukuntiisa ku dhala dirindiirta. arrinta yaabka ah ayaa ah in ukuntaasi goorta ay noole isu beddesho ay ka soo dhaxbaxayso dirindiirta iyadoo ay dirindiirtaasi aysan bakhtiyeyn. markaas ayaa waxa ay bilaabaysaa inay waardiyeyso oo ay u waardiyeyso sidii ilmo ay iyadu dhashay oo kale. markaa kadibna ay bakhtiyeyso. Ben Carlin waa ninka kaliya ee dhulka ku soo wareegay gaari ku socon kara dhulka iyo baddaba, isagoo socdaalkiisa ka bilaabay Montreal, Quebec, Canada 1951. markaas kadibna badda Atlantiga ku maray gaarigiisii awoodda u lahaa inuu badda maro ilaa uu Yurub tagay. markaa kadibna uga sii gudbay xagga dhulka ilaa uu ka gaaray China iyo Japan. waxa uu gaarigiisa u sii kaxaystay dhanka Alaska, markaa kadibna ku soo noqday Montreal oo ahayd meeshii uu ka dhaqaaqay markii hore. masaafada uu gooyay waxay ahayd 17,000 oo kiiloomitir oo bad ah iyo 62,000 oo kiiloomitir oo berri ah. Francisco Lentini waxa uu ahaa nin Talyaani ah oo dhashay May 18, 1889, isagoo leh 3 lugood iyo 2 xubin taranka ah. isagoo xaaladiisa la dhaho parasitic twin oo ah mataano ku dhagan laakiin aan noqon qof nool oo dhammaystiran. 8 sano goortuu jiray ayuu Mareykanka aaday isagoo sirkasyada ka qayb geli jiray dadkana tusi jiray lugtiisa dheeraadka ah, isagoo awood u lahaa inuu lugta saddexaad dhaqaajiyo oo uu kubad ku laado. Frank 3 lugood leh ayaa dhintay 1966 isagoo da'diisu ahayd 77 sano jir. Maxamed Bizik waa nin Liibiyaan oo ku nool Los Angeles, Mareykanka. waxa uu kafaalo qaadaa oo xanaaneeya carruurta xanuunada loo dhinto qaba. waa qofka kaliya baa la yiri ee foster gareeya carruurta aadka u xanuunsan. isagoo gacantiisa ku haya ayaa waxaa ku dhintay 10 carruura. bu'bu'a isha ama pupilka oo ah meesha isha iftiinku ka galo oo bartamihiisana ku taal, waxa ay u muuqataa inay midabkeedu madow yahay, laakiin midab ma leh ee iftiinka gala ayaa ka soo bixin oo waa sidii guri mugdi ah oo kale. haddii uu midab leeyahay iyo haddii kaleba waa mugdi oo madow adiga kuugu muuqda. Hindiya ayaa waxaa sharikad kiimika ah ay haraadiga kiimikadeeda ku qubi jirtay webiga magaalada. maalintii dambe ayaa waxaa la arkay eeyadii magaalada oo midabkoodii isbedelay. sidaas ayay shirkadaasi ku fashilantay oo dadku markii ay daba galeen waxa sababaya isbedelka midabka eeyda, waxa ay ogaadeen inay shirkadani haraadiga kiimikadeeda ku daadiso webiga. sidaas ayay dawladdu albaabada isugu laabtay shirkadan. haddii aad ka faa'iiday fadlan like garay, haddii kalena dislike samay. intaan mar dambe kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullah.